ومعصية هبلايا هلو جيتشيو هلو عمرو عرض إلهي هلكي كنا عيسى هل يمادو والله بالله تالله وصلص إنغو أودرينا باقاس وكعوانينا أبار أيينو شوية ديغينا شوية هاسي الرواية ذا معاصي الذنوب أينو حفلة وقوانينا يردد كي سويرنا culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa si weyn uga soo horjeestay in magaalada Hargeysa ay show ku qabato Fanaanada Kiin Jaamac oo dalka dibadiisa ka timid isla markaana dhawaan lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Hargeysa waa hoyga fanka Soomaaliyeed. Fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ayaa si weyn ugu soo hirtaa inay halkaasi ay ku qabtaan bandhig faneed. Fanaanadan oo dhawaan gaartay magaalada Hargeysa ayaa bahda fanaaniinta iyo sidoo kale hoggaanka siyaasadda ee Soomaaliland waxay sheegeen inay si weyn ugu soo dhaweynayaan magaalada Hargeysa ayna u qabanayaan bandhig faneedkeeda. Culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaana si adag arrintaas uga soo horjeestay iyagoo tilmaamay in Soomaaliland xilligan ay ka taagan tahay xaalad bini'aadanimo oo aad u adag taasi oo ka dhalatay abaaraha ka jira deegaano ka tirsan Soomaaliland. Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa aad uga taagnaa abaaro daran kuwaasi oo baabiyay xoolihii iyo sidoo kale dadkii. waxaana la arkayay xoolaha oo tarab u dhimanaya sidoo kalena dadka ayaa baahi iyo biyo la'aan xooggan ee haysa. Culimada ayaana xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay arrintaasi ay ka hortagaan isla markaana bulshada Soomaaliyeed ee abaaruhu ay hayaan loo gurmado halkii beddelkeeda bandhig faneed lagu qaban lahaa caasimadda Hargeysa. Kiin Jaamac waxay ka mid tahay hobalada fanka ee sanadihii dambe dhalinyarada Soomaaliyeed aad ula jaan qaadayeen heesaha kala caynka ah ee ay soo qaado Fanaanadan Kiin Jaamac.